بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كسر هذا برنامج كن ورك عيارها أبديتك أقدم بقضاء فشل كنقد وحيابها جوسب كتاعن شيكوين كبدا عكت أقوبها أنت نيسد أقدم بي أيام كسر قادم دونا قضاء برنامج كم مغلط دون تنوح كم دواسد حالة دويريان كلهم مجعوة سبستيان هالر نكدي مركني كان كحديس كبدا عكت بروشيد دورت متوبرك اسمينيسي اسكا بحي صدوق لارنت الدلائل واسكسر دمات جودها جرمالك أيو كسر أرسنال وقعنت كسر دكتويل lagu magacaabo sanjeeko qodobadaasi qodobo kale ee barnaamijkeena ku maqli doontaan intaan gudaha gelin barnaamijka hadda channelka cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale nagu dhiirigeliya saaxiibada in muuqaalka like saartaan bilaawna qodobkeena koowaad waa sidee xaaladda weeraryahanka lagu magacaabo Sebastian Haller kadib markii ninkan kooxdiisa kubadda cagta Borussia Dortmund tababarka ee sameynayay iskaga baxay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxay ku sugan tahay dhankaas Switzerland sidoo kale isku diyaarinaysa kulamada Barcelona xilli ciyaareedka isku diyaar inay ciyaarto weeraryahanka lagu magacaabo Sebastian Haller kaasoo dhashay xulka kubadda cagta Evercost ninkan ayaa saaxiibada qiimaha badan cabasho dareemay sidoo kale tijaabo caafimaad marka laga qaadana waxaa shaaca laga qaaday ninkan inay baro ku taal wali bixinanihiisa mid kamid ah ayaa baro ugu taala taasoo arintaas shoog ku noqotay dadka inta badan ciyaaraha jecel sidoo kale ninkan waxa la rajayn doonaa gudaha Jarmalka inuu ku soo laabto sidoo kale tijaabo caafimaad dheerina oo mari doon sida daraaddeed ninkana inta badan hadda saaxiibada saacadii ugu dambeeyay haysta wargeysyada sidoo kale inta badan dadka ka hadla kubadda cagtana ninkan wax u rajaynaya caafimaad ogaada weeraryahankan lagu magacaabo Sebastian Haller kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund dhawaan lagu soo biray horaantii bishan sidoo kale heshiis 4 sano ayuu qalinka gudug asoo ka imaad dhankaasiyo kooxda kubadda cagta Ajax sidoo kale ogaada ninkan xil ciyaareedka tagay 31 kulan oo ciyaar wuxuu dhalay 21 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sida daraaddeed hadda arintiisa qof walba kubadda cagta jeclaya shoog ku noqotay maadaama ninkan xinaniyiisa mid kamid ah oo baraka kaga soo baxay sida daraaddeed waxaan rajayn doonaa soo kabasho degdeg ah rajayn doonaa ciwaanada kale oo fashalkan soo qaadan karno waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Fenerbahce oo ka dhisan gudaha Turkiga ayaa markaan gacanta ku soo dhigtay weeraryahanka lagu magacaabo Joy Pedro sida hadda shaaca laga qaaday Britol ayaa la rajayn doonaa ninkan inuu gaado gudaha dhankaas Istanbul sidoo kale tijaabada caafimaad oo maray sidoo kale heshiisna oo qalan ku dhigay sida daraaddeed ninkan kooxdiisa Cagliari way soo fasaxday ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah arintii ay saaxiibada ninka lagu magacaabo Delay oo isku soo dhamaatay ninkan wuxuu ku sugan gudaha dhankaas Jarmalka sidoo kale xalay tagalanka dim ayuu soo gaaray magaalada Munich sidoo kale xal rajayn doon tijaabada caafimaad inuu maanta maro sidoo kale heshiis ilaa June 2017 ku dhigna oo qalin ku doogan ninkan kooxdiisa Juventus waxa lagu wareejiyay dul lacageed gaaray 70 milyan ayaa lagu wareejiyay sidoo kale 10 milyan ayaa gadaal ka bixin doonta kooxda kubadda cagta Bayern Munich sidoo kale xal rajayn doona heshiiska inuu soo gabagaban doona waxa la rajayn doona saaxiibada qiimaha badan saacadaha nagu soo fadlan kooxda kubadda cagta Bayern Munich inay soo bandhigtay ninka lagu magacaabo Delay arintiisa hadda waa isku soo dhamaatay كان waxaan arin farxad leh u hayna taageerayaasha kubadda cagta Gunners am Arsenal hadda waa official ninka Zinchenko arintiisa waa isku soo dhamaatay kooxda kubadda cagta Man City waxa lagu wareejiyay aduun lacageed gaaray 30 milyan sidoo kale wiilkan waxa la rajayn doonaa saacadaha nagu soo fadl sidoo kale waxa la rajayn doonaa tijaabada caafimaad saacadaha nagu soo fadl inuu mari doono sidoo kale heshiis gaaray June 2026 iyo qalin ku duugo doona wiilka arintiisa waxyaabaha kina wax kala meen personal issue ama waxyaabo asiga u gaaray sida heshiiska kooxda u saxiixay doorka kooxda ku yeelna wax walbana hadda waa laga wada heshiis sidoo kale jandana Arteta inuu kula soo biiro kooxda kubadda cagta Arsenal maadaama ninkan iyo Arteta hore iskala soo shaqeeyeen dhankaas Man City sidoo kale ogaada Arteta kaaliyihii wuxuu ahaa Pep Guardiola sida daraaddeed saacadaha nagu soo fadlay wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Gunners sida daraaddeed kooxda kubadda cagta Man City ayadana bedelka Zinchenko gacanta ay ku soo dhigi doontaa maadaama hadda shaaca laga qaado wiilka left back ama difaaca bidix ka ciyaara waa ninka lagu magacaabo Marc Corella in heshiis la gaartay sidoo kale ninkan kooxdiisa kubadda cagta Brighton ay ka soo qaadan doontaa asna sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa wiilkan waxa xiiso u qaba macallin Pep Guardiola wuxuuna u arkaa bedelka kaliya Zinchenko sida daraaddeed Man City ayadana bedelka Zinchenko gacanta ay ku soo dhigtay markaan saaxiibada qiimaha badan arrimaha gossipka waqti xadirkan taagan ayaan soo qaadan doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la rajayn doonaa in wiilka lagu magacaabo Jules Kounde saacadaha nagu soo fadlan ay gacanta ku soo dhigtay sidoo kale kooxda kubadda cagta Sevilla wax loo wareejin doona aduun lacageed gaaray 55 milyan sidoo kale 23 jirkan kooxda kubadda cagta Chelsea hore ay arrimaha shakhsiga kala heshiin heshiiska saxiixa mushaarka qaadan wax walbana meel ay isla dhigeen sidoo kale waxyaabaha kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah Aaron Ramsey oo 32 jir oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus ayaa hadda rajayn doona kooxdiisa hal ciyaareed inuu la sii joogo sidoo kale qandaraaskiisa oo dhameysay sidoo kale xil ciyaareedka dambana oo si free kaga tagay naadiga oo rabana iskaga biiran daba Arsenal de gacanta ku soo dhigtay Zinchenko weli ogaal saaxiibada kooxda kubadda cagta Arsenal ama Ghana
Gunners wali suuqa kama bixin sidoo kale hadda waxa la rajeeyaa inay gacanta kusoo dhigto 24 jirka lagu magacaabo Lucas Paqueta kaasoo ka tirsan kooxda kubadda cagta Lyon sidoo kale Brazilian-kan oo qadka dhexe ka ciyaar waxay rabtaa Arsenal inay qadkeeda dhexe ku xoojiso waxyaabaha kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Leeds iyo sidoo kale West Ham ayaa xiiso u qaba weeraryahanka lagu magacaabo Martin Tarana kaasoo ka tirsan kooxda kubadda cagta Rennes 25 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa adduun lacageed gaar ah 40 milyan ilaa 35 milyan ayaa inta badan lagu qiimeeyaa sidoo kale waxyaabaha kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta West Ham ayaa rabta inay la soo saxiixato ninka qadka dhexe ka ciyaara ninka lagu magacaabo Amadou Onana kaasoo 20 jir ka tirsan kooxda kubadda cagta Lille sidoo kale Lille ninka inta badan waxay ku qiimeysaa adduun lacageed gaar ah 30 milyan sidoo kale kooxda kubadda cagta Hammers ama West Ham ayaa rajayn doonta ninka inay gacanta ku soo dhigto intaas kuma eke West Ham waxay saaxiibada baadagoob ugu jirtaa ninka lagu magacaabo Jesse Lingard weeraryahanka 29 jirka ayaa free ah sidoo kale waxay rajayn doontaa asana saacadaha nagu soo fudud inay gacanta ku soo dhigto sida daraaddeed West Ham ayadana suuqana dardar xoogan ay ka wadaa kooxda PSG ayaa ninka lagu magacaabo Wijnaldum saaxiibada qiimaha badan u bandhigtay labadan kooxood inuu kala doorto miduu ku biir laba kooxaha kala Rome sidoo kale AC Milan maadaama labadan naadi ka dhisan gudaha Talyaaniga ay rabaan ninka inay ku qaataan loo yaqaan ama sida daraaddeed ninka lagu magacaabo Wijnaldum asiga dooq iskale labadan koox miduu ku biir la sida hadda ku soo waramay shabakad loo yaqaan Calcio Mercato sidoo kale AC Milan intaas kuma eke waxay baadagoob xooggan ugu jirtaa ninka Tottenham u dheelay waa ninka lagu magacaabo Tanganga oo 23 jir arrintiisna way soo dhameyn doontaa sida hadda shaaca laga qaado maadaama 23 jirkan Tottenham ay fasaxayso sidoo kale AC Milan waxay ku rabtaa ninkan inay ku qaadato qaab ama inay ku qaadato ay doonaysaa kubadda cagta Chelsea ayaa doonaysa Ross Barkley 27 jir intuusan xil ciyaareedkan bilaabay inay ninkan iska iibisay maalinkiisii Arsenal saaxiibada qiimaha badan marka ka dambaysa koox ayaa dusha loo saaranay hadda xanti ugu dambaysa bixayso xitaa ninkan waxa doonaysa kooxda kubadda cagta Atletico Madrid sidoo kale 37 jirkan oo Portugiiska saaxiibada qiimaha badan ayaa la sheegay in uusan ku faraxsanin kooxda kubadda cagta Man United sidoo kale uu baadagoob xooggan ugu jiro kooxdu ku biir la maadaama kooxaha Yurub uga caansan albaabada ka soo xirteen sidoo kale waa inta badan goosibka ama xanta inta badan la soo qoraan laakiin hadda waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan macalinka Manchester United ninka lagu magacaabo Erik ten Hag ayaa ninka arintiisa si kulul kaga hadlay sidoo kale wuxuu yiri iib ma aan ninka lagu magacaabo Ronaldo wali wuxuu ka mid yahay qorsheeda Old Trafford ayuu joogo waxa sheegaysa in xil ciyaareedkan sidoo kale wuxuu yiri xil ciyaareedkan iska daa xil ciyaareedka dambe ayaa rajan doona ninka lagu magacaabo CR7 in haysto taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan suuqa wali xantu iska jirta sidoo kale CR7 asna mowqifkiisa ma cadda wali Musa cadeysay inuu kooxda joogay ama ka tagay sida daraaddeed CR7 arintiisana way kulasha sidoo kale marmarka ka dambeysana koox ayaa ninkan dusha loo saarinaya bal markan waxaan aqbar idinka hayna saaxiibada kooxda kubadda cagta Napoli waa ninka lagu magacaabo directorkeeda lagu magacaabo Gontella ninkan waxyaabo badan ayuu saaxiibada shaaca ka qaadin masaacadii ugu dambeeyay waxa la sheegay Bayern Munich inay doonato ninka lagu magacaabo Victor Osimhen laakiin wuxuu yiri anaga wax dalba nooma soo gudbinin kooxda kubadda cagta Bayern Munich sida daraaddeed wuxuu shaaca ka qaaday Bayern Munich inaysan la soo xiriirin ninka lagu magacaabo Victor Osimhen sidoo kale dalba rabsina aysan ka soo gudbinin wad kuma santeen saaxiibada daasha daateen muuqaalka halkaas noona barnaamijkeena update-ka ciyaaraha wararka ugu dambeeyay sidoo kale waxyaabo wixii soo kordhana barnaamijyada dambe ku ogaan doontaan haday taa markii ku hore soo boqon channelka subscribe noo saar sidoo kale lawin inaa muuqaalka laga noo saarto aragtada comment noo qeyb hadaa kamid tahay saaxiibada hore noo la joogay muuqaalka share si saaxiib wanaagsan sidoo kale channelka ugu soo biraan inta barnaamijka mid ku kulmino amaana Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakatuh